السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلنتي وعن ملول باجوكتين وأنا ودكتور صدام حسين ما أنت waxaan idin wadaa 10 calaamadood aad ku garan kartid abuuritaanka cunuga mise nolosha cunuga markuu caloosha ku jiro inay soo gabagabowday 10 signs 10 calaamadood aad ku garan kartid cunugii in uu calooshii ku dhex dhintay oo maaragtay calaamadahan maxay yihiin waa 10 calaamadood kow hadaan u guda galo midda koowaad waxa waaye in aad adiga hooyada ah dhiig furusho aad isku aragtid dhiig oo maaragtay dhiiga uurka ka hor waa wax iska caadi ah laakiin dhiiga oo maaragtay xilliga uurka ah in ay dhibaato weyn ay tahay taasna ogow cunuga ay noloshiis in ay khatar ku jirto oo maaragtay cunugii uu sidii aad ku wayni kartid midda labaad waxa waaye in aad wax biyo ah aad soo furutid adigoona maaragtay gaarin waqtigaaga oo dhalmadii 40 usbuuc ay ku dhamaaneen ama 38 ama 39 usbuuc aad gaarin in cunugii maaragtay ama aad biyo aad furutid ama any discharge oo idil aad soo furutid biyo maaragtay tani waxay ku cadeynaysaa biyaha maaragtay xilligani oo iska soo furmaya in amniotic sac ama waxa ku heerarsan cunuga biyaha cunuga ku heerarsanay oo protect gareynayo ilaalinaya maaragtay waxyeelooyin badan maaragtay ka caawinaya in ay dilacmeen oo maaragtay ay u dhamaatay maaragtay taasna la soco arrin saddexaad waxa loo yaqaano intrauterine growth restriction wax la yiraahdo intrauterine growth restriction waa maxay marka mise IUGR waa maxay IUGR wuxuu ku sheegayaa in maaragtay cunugii xalkiisii uu noloshii cunugii calooshii ku sii abuurmayay in ay istaagtay tani waxa lagu ogaadaa maaragtay diagnosiskeeda waxa waaye in ultrasound lagu sameeyo oo maaragtay waxyeelooyin badan kala lagu sameeyo oo la ogaado laakiin intrauterine growth restriction hadii lagu sheego cunugii waxay ku sheegaysaa in uu size-kiisa uu ka yar yahay size-ka looga tirgalay oo maaragtay oo ahaa cunug walba in waqtigaasi uu joogo size iyo measurement looga tirgalay baa jirto laakiin cunugani uu ka yar yahay size-ka looga tirgalay tanina waxay ku cadeynaysaa miisaan ahaan maahan laakiin abuuritaanka cunugii uu koritaankii meesha uu ku koray ayaa soo gabagabowday cunugiina maaragtay in uu sidaasi dhibaato ku soo gaarta ayaa dhici karta arrinta kale ama calaamada kale aad ku ogaan kartid cunugaaga in ay maaragtay normal uu yahay oo noloshiisa ay khatar ay ku jirto waxa waaye in uu maaragtay cunugii noloshii heartbeat-kii idil uu shaqeynay heartbeat waa maxay wadna garaacii idil inuu soo gabagaboway oo maaragtay wax wadna garaac cunugii uu lahayn tani waxay ku cadeynaysaa marka cunugii in noloshiisa ay soo gabagabowday cunugiina hadduu wax wadna garaac lahayn kale waxa waaye arrinta loo yaqaano waxa beta HCG-ga hormoonka beta HCG-ga loo yaqaano haddii maaragtay drop uu sameeyo uu hoos u dhaco tani waxay ku cadeynaysaa in maaragtay in cunugii noloshiisa ay khatar ku jirto marka tani waxay ku sheegaysaa hormoonka beta HCG-ga mise BHCG-ga loo yaqaano levelkiisa hadduu hoos aado waxay ku cadeynaysaa inuu maaragtay xilliga uurka waxa laga rabaa hormoonkani inuu ku darsamo xilli wuxuu gaarayo uu istaagayo laakiin hadduu hoos u sii socdo adna uur aad leedahay that means in maaragtay dhibkii cunugii noloshiisa khatar ku jirto kale waxa waaye cunugii hadii maaragtay hooyadii hadii maaragtay xanuun badan xilliga uurka xanuun cramps oo zaid ay dareemayso qabad zaid hoostaasi hoose ay dareemayso oo maaragtay throughout ah waxaad ogaataa ayadana cunugii iyo adigaba noloshiina inay khatar ku jirto tan kale waxa waaye abnormalities oo maaragtay lagu sheegi kara dhanka ultrasound uu sheegay computerka marka lagu sameeyo ama dhakhtarkii uu codsado computer inuu cunugii dhaqdhaqaaq uu lahayn wadna garaac uu lahayn iyo maaragtay abnormalities oo dhanka ultrasound-ka ay sheegaysa taasina waxay ku cadeynaysaa cunugii in noloshiisa ay khatar ku jirto arrinta kale waxa waaye maaragtay standard waxa loo yaqaano standard fundal height-ka haddii uu maaragtay uu ku darsan yahay height-ka fundal height-ka waa maxay fundal height-ka waxa waaye waxa loo yaqaano kasoo bilow cunugii dhirirkiisii waqtiga uu maaragtay uteruska ama minka uu ku jiro in waxa la rabaa measurement looga tirgalay baa jirto oo inuu gaaro usbuuc walba halkuu jooga fundal height halkuu jooga hadii loo yiraahdo waxa la rabaa inuu meel certain specific area inuu gaaro marka hadii 22 usbuuc mise 20 usbuuc aad joogtid waxa laga rabaa inuu ahaado xundurta mise umbilicuska inuu ku toosanaado hadii aad 38 aad joogtid inuu maaragtay si fiistanamka halkaas goro oo bog ah inuu cabirkii uu joogo marka waxaan iyadoo waxa lagaaga baahan yahay in aad labada arrin ugu dambaysa ayaa ah waxa maaragtay loo yaqaano qandho zaid ah haddii aad isku aragtid qandho zaid ah oo dhanka maaragtay xilliga aad uurka leedahay ogow ayadana cunugii inuu noloshiisa khatar ku jirto midda kale waxa waaye arrinta ugu dambaysa ah
cunugii hadduu wax dhaqdhaqaaq u lahayn cunugii hadduu dhaqdhaqaaq lahayn ayadana waxaad ogeytaa in ay nolosha cunuga ee khatar ay ku jirto oo maaragtay oo third trimesterka markaad ku jirtid gaar ahaan saddexda bilood ugu dambeyso oo maaragtay uurka haddaad ku jirtid cunugiina uu wax dhaqdhaqaaq u lahayn ogow ayadana cunugii noloshiisa inay khatar ay ku jirto intaasi waxaa nooga soo gabagabahay 10ka signs mise calaamadaha aad ku ogaan kartid cunugaaga noloshiisa inay khatar ku jirto mise haddaad isku aragtid cunugaaga in uu maaragtay normal uu yahay taasina ogaada haddana waxaan idinka codsanayaa channelka inaad ka ilowin subscribe like share sidaas iyo nabadgelyo